بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan yar la faguraynaa amba yar macnaynaynaa heesii hore ee gubanidoonka iyo dareenkay dawateen iyo shucuurta iyana dib ugu laamana bal habkay dariiqay soo mareen dadkii de gubanidoonka ahay waxa dhici karada inay dad awyaashin ku jiraan in bay awyaashu ku jiri karaanba marka waxaan ku yar laamaynaa bal heesii oo maanta saddex soo qaadan doono waa gaashaanle waa gaban mayno indhigibirsan mayno iyo calankeena dhidba saddexda baan soo qaadan doonaa maanta doo leeyahay saddexda baan yar la faguraynaa oo macnaynaynaa oo isu taagaynaa bal waxay macnaynayso macno guud iyo macno hoose waxay xambaarsan tahayba laakiin dareen quraatay wala hayno dareenkaas wuxuu ahaa dareen gobanimo doon annagu xagga ka duulayna waxaan ku bilaabaynaa heesti gaashaanle Allahu naxariisto waxa sameeyay aadan cilmi qooryare oo dhowr iyo toddobaadnadii uu sameeyay Cabdu Xamed Qorno ku qaadaya waa abwaankii sameeyay heesta calanka liiriga waa liiriga calanka markaan heesta leeyahay waxa uu kala baxday lixan heestu iyo midho markaan midho aan sheegay waa liirigi waa qoraalkii barooliye buu ahaa isagu marka afka qalad ku sheegayno barooliye buu ahaa marka wuxuu isagu waa isaga qoray heesta calanka hinjineeda heestana isaga qoray marka wuxuu de ka hadlaysana macnaheega dhageysan doontiin waxay leedahay waati guyaal badan garashada ilaahiyo gabla noqotay raganimeen godlanayna meedka waati guyaal badan waati sanado badan garashada ilaahiyo aqoonsigii ilaahay iyo gabla noqotay raganimo la waayay ee godlanayna meedkuna hortayna wadnaa gardarada shisheeyaha daandaasiga gumaystaha nin gurguurta mooyee ninka gabada mooyee waataan ganoodku marka ganood la sheegay waa foorsi foolxun aad u foolxun oo lagu miiray oo midho dareemaysid amba si xun lagu waxa tabanaysid oo samayn kar laadayna waataan ganoodnay saab ku foornaayo saa lagu xusdex geliya lugaha iyo madax xusdex geliya waa foorsi foolxun waataan ganoodnay ka gilgilin weynay iska hurguf weynay diidi weynay ka biyo diidi weynay ka dhiidhin weynay af Soomaaligeena waa qani af Soomaaligu iska diidi weynay oo ka kici weynay ee lagu soo gabani jiray gabigi lagu soo gabani jiray ee isaga de la isku khabayn jiray ninkii dumiyay gaashaanle inuu yamiyaan garanay ninkii waxa burburiyay guumeystii burburiyay gaashaanle inuu yahay cid baana garanay isagana gabood waa garanaysiin garbaduubku waa dib loo xiray garbaduub ugu toogteen gantaal caafimaado gantaalku waad garanaysiin oo afka qalaad miisiil balaya laakiin waa metafoor waxaan in sarbeeb isagu metafoor ahaan buu qaadanaya sarbeeb ahaan buu qaadanaya gantaal caafimaado gantaalkaasi qof bili aadan gantaal kuma tilmaami karayo laakiin desna afka qalaad ba sarbeebta loo metafoorka loo soo qaato par exemple ka de imka miisaan hadaan siiyo la rivière serpent baan ilmaha telin par exemple de dixdu masmaha yadu oo isma laakiin el serpent waxbaan way duuduraysaa sabab socota dixdiis marka waa metafoor ahaan buu soo qaadanaya tan oo waa sarbeeb ahaan wuxuu gantaal caafimaado miyaad geeriyoonine adu ma dhimanay wuxuu kula gudboonaa wixii inaan qabatay ay ahayd adu inuu gaashaanle monument ama meet noo noqday oo la barto waa taalo ma guuraana gaashaanle in amstuarkiisa ciyaalkaasi bartaan waa in loo dhisaa aqal heestii gaashaanle inta baan ku soo koobaynaa macniisteedii